12 Agosto sanad ka hor ayaan isu nimid aniga iyo qaar idin ka mid maalinta iyada ah waxaanu dabaal degnay dhalinyaradii ficiina ahayd ee sababtay inaan caawa halkan joogno sababtoo iyaga ah dhaliyay qarannimada Soomaaliyeed maalinta iyada ah waxaanu dabaal degnay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku noolaa wacyigiina ka dhibadan oo haystay dhaqaale idinka yar oo aan lahayn xorriyad oo ku jira gumaysi oo markay albaabku u soo baxaan khatartooda ay ahayd inuu dilo qof nabi laakiin waxay goosteen waqtiga iyada ah inay naftooda ku bixiyaan si idinku aad u heshaan nolol ka fiicantii ay ku jiraan maalinta iyada waxaa joogtay dhalinyaro u dagaalamaysay jiritaankooda iyo jiritaanka kuwa ka dambeeya taariikhdii iyada ahayd oo ay sameeyeen ayaan isugu nimaadnaa 12 Agosto iyo mar walba oo la dabaaldego SYL oo halkan isugu nimaadnaa oo meel kale mar walba oo laga sheekeeyo taariikhda dunida waxay astaan u tahay dhalinyaro ama ha ahaadaan dhalinyaro Soomaaliyeed ama ha ahaadaan dhalinyarada maanta dunida u dabaaldegaysa kuwaas waa kuwa aan abaal u hayno weligoodna aan qirayno inay yihiin kuwa noo ogolaaday inaan u noolaano sidaan u noolnahay kuwaas oo aan ku xisaabtamayno wixii ay noo dhiibeen meeshii aan geynay markaan isxisaabinayno ay tahay qayb ka mid ah isla xisaabtanka aan ugu yeero isla xisaabtanka damiireed oo qofku leeyahay kuwaasi waa kuwa caawa halkan aan isugu nimid inaan u dabaaldegno halkan waxaa kaloon caawa u joognaa inaan u dabaaldegno kuwo kale oo aad idinku ugu horraysaan kuwaas waxay la dagaalamayeen gumaysi ilaahay ha u naxariistee way ku guulaysteen inay gumaysigii dalkeenna ka xoreeyaan waxay ku guulaysteen iyadoo Afrika inteeda kale aanay ku dhiirin waxay ku guulaysteen iyadoo Afrika intooda kale aanay hurdada ka kacin waxay sababeen in dunidu iyo kuwiina gumaysanayay ay qoriyuhu ku filnaa waayaan ay waqtigaa gaareen in Afrika aan noqono dalkii ugu horreeyay diyaarado la soo aadaan waxaa keenay kuwa idinka da'diina halkan waxaan u dabaaldegaynaa dhalinyaro kale waan la dagaalamayn gumaysi laakiin la dagaalamaya dagaal kale oo badan dagaal kula jira dhibaatooyin kale oo ay ugu horeeyaan jahli dhibaatooyin ku salaysan faqri iyo gaajo dhibaatooyin la xiriira argagixiso iyo qabyaalad dhibaatooyin la xiriira musuq maasuq iyo dangaara dhibaatooyin la xiriira in la iska celiyo kuwa diyaar u ah dalkeena inay iibiyaan kuwii dalkeenna xoreeyey iyo kuwa caawa halkan aan ugu dabaaldegay waxay ahaayeen dhalinyaro kala duwan ku kala nool 2 qarni wajahay 2 dhibaato oo kala duwan laakiin waxay ka midaysan yihiin labada gruubba ama labada dhalinyaraba waa rajada keliya ay markaas lahaayeen ummadda Soomaaliyeed haddana rajada keliya ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaan leeyahay caawa waxaan halkan hambalyo uga diraynaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan
وأن لنا هاي مالنتن يدا ولوجا استيي دلنيرنimada waxaan leenahay meel walba oo ka joogtiin dalka Soomaaliyeed iyo dibadda haddii aad ugu jira dhig Soomaaliyeed hambali waayo dhalinyaradu waa waqtigii xoogga waa waqtigii aqliga caafimaadka waa waqtigii qarannimadu uu qofku ka jeclaa wax walba waa waqtigii qofku wax soo saari lahaa waa waqtigii qof walba uu hamigiisa geyn lahaa meel sare si uu hiigsado baalkii taariikhda looga qori lahaa mustaqbalka dhalinyaranimadu waa waqtigii aad yeelan lahayd raasumaal qarannimo iyo qofeed sanad ka hor waxaan inkala hadlay inaan ka shaqaynayno inaan dalka dib u dhisno kobcinno dhaqaalaha sanad ka hor waxaan idinkala hadlay inaan laga shaqayn karin haddii aadan idinku ka shaqaynina sanad ka hor waxaan idin sheegay inaan u jeedo iftiin aan rabo inaad iila jeedaan sanad ka hor markii dad badan oo Soomaaliyeed ay fahmi waayeen inay ila arkaan iftiinkaas waxaan idinkaga mahad celinayaa inaad idinku ila fahamteen shalayto waxaan daafurnay wax la yiraahdo golaha dhaqaalaha qaranka sanad ka hor ayaan idin sheegay inaan amniga la sugi karin kaligiis inaan siyaasad loo dhan yahay laga shaqayn karin inaan dalka dib loo dhisi karin inaan la soo saari karin bulsho caafimaad qabta inaan la heli karin bulsho wax baratay haddii aan dhaqaalaha wax laga qaban waxaan shalay u daafurnay golaha dhaqaalaha qaranka ay ku jiraan dad Soomaaliyeed iyo dad aan Soomaali ahayn oo mid walba uu PhD haysto sababtoo ah waxaan soo gaarnay iftiinkaan idin sheegayay laakiin waxay u baahatay aqoon ka badan mid anagu aan leenahay sababtoo ah waxaan aqbalnay inaan si sax u qaadano daawada naloo qoray sababtoo ah waxaan aqbalnay inaanan qarin cudurka aan qabno waxaan aqbalnay inaanan yeelayn dalkan in musuqmaasuq lagu dhaqmo waxaan rabaa caawa marka inaan halkan uga diro farin qof walba oo Soomaaliyeed ama wasiir ahaw ama cid kale ah oo xil u haya dawladda Soomaaliyeed oo ku fikiraya inaad ku takfasho xoolaha ummadda oo ka shaqaynaya inaad musuqmaasuq waxaan kuu sheegayaa inaadan alfanayn ha isku xadin ha isku dhicin waa lagaa daba imaanayaa waa lagu soo xiraya waa la dhaafay waqtigii musuqmaasuqa iyo tuugada waa la dhaafay waqtigii lagu takrifani jiray xoolaha ummadda Soomaaliyeed sanad ka hor waxaan idin ballan qaaday in la shaqaalaysiiyo 1,000 dhalinyaro ah waxaan rajaynayaa in qaar idin ka mid ay ka faa'iidaysteen sanadkaana waxaan leeyahay gudoomiye yariiso ka qaba araajida 1,000 kale oo Soomaaliyeed oo la shaqaalaysiiyo wada xisaabtan waxaan leenahay injineer yariiso oo ah duqa magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir waa inaad si cadaalad ah uga qabataa 1,000 qofood oo Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho rag iyo dumar idinkana waxaan idin leeyahay kula xisaabtama kana faa'iidaysta sidoo kale waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo degan dawlad goboleedyada hoos yimaada dawladda federaalka sidaas oo kale ayaa idinkana la idinku keenayaa shaqaalaha la idin shaqaalaysiinayo dhaqaalaha lagu bixiyo magaalada ayaa idinkana la idinku bixinayo sanad kadib waxaan aaminsanahay in dareen qarannimo u dhashay
سنة كتب وحنا من سنة إن همجي يقبكي ومدة صومالية ودب حقي سنة دي حوالي كتب وحنا من سنة إن مدة صومالية يعني مدة بقبل الدنيا لنا عاوة وحن كفر أحسن لكن إن شغلي غرن كانوا إني أي مرة الشيء سببتها هل كان واحد سوي استاجي جبر لي رامونا يقول لي هذا الله فوله فرينت هل كان يجيب الدين أيا حنبار سنقرن لماذا يدين وعن سوي الدين إنه مركب ماشي حتى عن سوي قالنا وأساسك حقين ربنا إلى كذا دل نوعية أيان ربنا إلى بسمه دولة نوعية أيان ربنا إلى يلا شرف كرامة نوعية أيان ربنا إلى يلا وعن كجرنا قرنك كوي لباتنات ما يلن كرنو لغن تصر إيسان قرنك لباتنات وحال الربان مركز اللي يروي إن رئيس الوزارين وهلك الزوج استاغو ويرادو بل يرى شغاليسين إنا ما همك علينا همك علينا وحوي هاي دلكن استغال خيرات كفرة خيرات كثيرة وفائدة سنة أنك هرتاقنين كدوات صدر صدر سؤال شاندين قبل وحي تهي ديار مؤتهين إن نكور جن إسبارة بس الديار مهدين ديار مؤتهين بالنموذج إلى نكور جن إسبارة وعن شيء يا سيان دنيا أولى تتم وين الله نهاي سكولو يجامع ذوق أستيسان قرنك كوي لباتنا وين الله نهاي معلمين يما مريال أبونتو دايو دقلتو أما كسر رئيسو دولة الدنيا انتو لكا وين الله نهاي سبتالو يسكولو يجلد يبندوي دنيا أسوء جيدية دلك صوماليا وين الله نهاي الشروط كلا هكذا دلك يقول رب دلك إنه يمالان ويمال قشلان وأنا لنا هاي مسؤولين سياسيين شغلوا ذا هاي إن الشعب هو أذيان وأنا يحين إن يجوا شعبك كأذيان كل الصعون كرنا الطريق خرين ومسؤول كرنا إن نصور صارنا وحي هرا وحكدون كل الشغلين كرنا قبيالات ومدرس كرنا ذلك أن شيء ما أقبل كرنا مصوماسك وما تسي كرنا ذلك أي شيء ما يالي كرنا ينقفك مصوماسك ويسو حرو ولا الكيس مع ذركيس وحلباني وزير يكتب لي ماذا نيرادان على صوت دايوي أيضا لا يستيقع مصوماسك خلاص ما يالي كرنا حمر كدوات 6 مليون وقف من يكونوا شايف دور ويلو الشباب أنا إلى الشعب كنا نوشو ديدا هدي دقمه وباي سبب شو اللي يلا يهودنا كتعلو هتسكت إنسان عاوة محطو عشان إنسان إنك فكرتان أو فكرتان غرنقة لبات صومالي حقيقة وجوبيسا أو فكرتان جيد كمان تانو وأمبيرو بقول سنة كتب يا الله هرسن دونا ما أرك دونا أنا وحارك دونا عرورتي دي كوي سيدا لين سيدا كوي ريال بسودني أنا عاوز يدي بيرن وأمسنين دولة النمو وخفق البقوة بشيء إني مرك خرج الحساب وحل اسمه استماع عن بيل الصومالي محل غيري وحل اسمه استماع حل بان كيلو عضين إيسا وحل اسمه استوى مستقبل كذا وسيدا ضمن ولا له ودحلك عروض هذا وتجيله وشرف هذا سيدا يهان له والرأس مال كذا وحاول